ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa burburiyay guryo iyo baraago ku yaalay deegaanka Caliwaal oo 40 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana dadka deegaanka oo ilaalinaya nabadgelyada ay ku soo wargeliyeen guddiga golaha nabadda gobolka Mudug dhibaatada ay geysteen ciidamada maamulka Puntland wafdi ka socday guddiga nabadeynta iyo odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee Galmudug ayaa booqday deegaanka Caliwaal ee waqooyiga bariga gobolka Mudug si ay u soo arkaan dhibaatada ay geysteen ciidanka maamulka Puntland waxaana halkaas warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada oo sheegay in arrintaani ay tahay daandaansi colaadeed halkan waxa weeyaan deegaanka Caliwaal waxa weeyaan deegaan soo jireena oo la deganaan jiray weeye anigoo ku hadlaya dadkii deegaanka halkan deganaa afkiisa ku hadlaya waxaan sheegayaa inay soo jireen tahay oo deegaan hore tahay waxa u daliila halka qabuuraha yaala ceelasha markii biyo baliga ka goran inta loqoto lagu soo sameyn bixi jiray ceeshii baa markaati halka taala biyo markay dhamaadaan meeshii boodi biyo ku soo guri jireen oo bacahii godadkii bixii baa halkan yaala ka bacdi wixii baag iyo tuulo iyo qaroo oo jiray dadkii intaas deganaa بعديجيد waxay sameeyeen baraag bay qoteen iska wuxuu qabsay ku qoteen xoogooday ku qoteen dadkoodii kale ayaa soo taaguleeyay waa la dhisay guri bay dhisteen ay diila guri doonayaan inay ama ku qortaan ama wax dhigtaan deegaankaas oo diila ku ruuyay ku dhac jira nabadii Puntland iyo Galmudug dhex martay iyadoo la wado oo aan qaadanay nabadda oo diila ba ku ruuyay laga ballamay oo Ilaahay uga shukrinay nabadaas anagu waxaan nahay dadka u diyaarka ah waan nahay balad ibaadin waa isgaarsiinay bacdigeed waxa dhacday marka nabadii iyo deegaankii sidaas ahaa in la dhibaateeyay oo ay dhibaateeyeen ciidamada Puntland inay dhibaateeyeen ayagoo wata teknikadii oo aan la lahayn dad tuuga ah xun baa sameeyay warka oran karimayo waayo teknikadii iyo xamuulkii baa loogu soo talagalay maalweyn baa loo soo nadiifsaday markii hore sahan baa lagu yimid laba Cabdibilaa timid haddana maanta mashan Cabdibilay ku yimaadeen iyo baawur iska roga gurigii waa lagu baabiyay barkadiina waa la baabiyay waana kaas muuqda gurigii iyo barkadii halaaga loo geystay waa ka muuqda waxa weeyaan waxaan sheegaynaa marka inay warkaasi uu yahay wax nabadii wuxuu dhibaya islaamnimadii wuxuu dhibaya hadii la darisnimadii wuxuu dhibaya in waxa weeyaan dad waxaan leenahay anagu kulliga waxaan soo dhaweynaynaa markastaba nabadii baan soo dhaweynaynaa markastaba nabadii aan soo dhaweynaynaa insha Allah bidnillah karim walaalaheen inay nala gartaan oo falka halka ay ka sameeyeen ay ka bixiyaan hadii lagu magdhow iyo hadii la ku ruuyay ganax intaas bay ka bixiyaan hadii ay sayeelina sidii awal ugu tala galeen nabadda inay jeexaan bay dhamaystirteen waana mahadsan meeshaan sidii rag hore sheegay Caliwaal weeye dhibaataas ma wataan waa ku taala waa lagu sameeyay ciidamo Puntland oo duulaana oo teknika wata ku soo duulay meeshan burburiyay barkadii iyo guriga ka dhisnaa dhibaataas aan soo gudbinayna anagu arrin qarsoon ma ahan shay mushaawi gudoomiyaha guddiga nabadeynta gobolka Mudug Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed oo hogaaminayay wafdiga tagay deegaanka Caliwaal ayaa xusay inay qaadayaan fariinta ay u soo dhiibeen dadka deegaanka wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo xasiloonida deegaanka isla markaana dadka deegaanka ay sii wadaan sidii markii hore ay isku xakameeyeen guddiga nabadgelyada ahay waxaan ka xunahay marka hore dad Soomaaliyeed deegaan ay sameysteen oo guriyo iyo barkado iyo dadku inuu ku noolaado loo sameeyay in la baabi'iyo aan maartay aad iyo aad uga xumahay dadkii ay ku dhacdana waa uga taasiinaya marka labaad anigu halkan waxaan maray xilligii abaaru ay jireen wafti waxaan ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Cabdi Xaashi oo hogaaminayay wacyigelin baa halkan ku qaban xilligii waxay ahayn labada madaxweyne ku-xigeen ay joogeen oo sidaan kale nabad laga shaqeynayay halkan baa uu qabtay shijarayd abaarihii dadku markii ay jireen oo dadku aad u dhiban yahay roobkana halkan laga bilaabayay horey baan u sii soconay Sangaduud sidoo kale tagnay Raamaale intaas oo dhan ayaan shir ku qabanay iyo wacyigelin intaas xilligaas ka dambeysay markii nabadan dambe oo aan hoggaanka ka ahay gurad u keenay aan qaadanay oo hal san iyo bil amal laga joogana laba saddex jeer baan ku balligan iyo deegaankan ku qabanay shir mar walba dadku waxay ku taamayeen ama ay ka cabanayeen biyo la'aan iyo si biyo loo heli lahaa waayo godad iyo qarqoora ayaa biyo ugu sokeeya
mid waliba 15 iyo 15 baan filayaa inay u jirto deegaan waxa xagga biyaha lagu dhiban yahay marka kadib barkadan ayaa sida odayaasha hore sheegeen iskaashi lagu dhisay waxay ahayd in dadka iyo dunyadu ay ku noolaadaan dal riixna ma ahayn cid marka laga riixayana ma jirin ilaa xilliga isdaba jooga dadka ugu imaanay baana joogay ayagaana samaystay marka insha Allah cabashadiina waa qaadi doonaa guddigii waa isku laaban doonaa galxayaan isugu tagi doonaa wararkana waa qabaan waa isgaarsiinay sala socotaan reer Puntland waxay jiraan garowga doorashada ahayd marka ay ka soo rogmadaan hadii alla yiraahdo ayaan u ballansanahay inaan anagu wada jirnaa nimaano wixii xal ah oo laga gaari karo maarta laga gaaro waxaan rabaa inaan ka codsano kuna taliyo inaan wax dhibaato la sameyn oo nabadii sideedii loo adkeeyo waayo hadii la iska aarguto oo sidaan oo kale maarta in la sameeyo lagu aansado dhibku inta wax ka sii badanaya ragga halkaan sidaan wax yeelay runtii kuwa nabadda u adeegaya ma ahayn waa ka xunna waxay sameeyeen idinkana waxay ka codsanayaan inay sameyn xal baan laga gaari doonaa deegaanada waqooyi bari ee gobolka Mudug ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa degan balse mararka qaar ficilada laga soo warinayo deegaanadaas oo tan ay ka mid tahay ayaan ahayn mid u hiilinaysa nabadda. Saadiq Saciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.